madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa salaasada u sheegay isla markaana ku wargeliyay dhigiisa Israel Isaac Herzog inuu aad uga xumaaday Falastiiniyiinta lagu dhaawacay ama lagu dilay daanta galbeed iyo masjidka Al-Aqsa inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Tan iyo Jimcihii Al-Aqsa ayaa la arkayay isaga horimaadyo u dhaxeeya dhagax tuurayaasha Falastiiniyiinta iyo booliiska rabshadaha Israel, waxaana Jimcihii ugu yaraan 152 qof oo Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen isku dhacyo booliiska Israel kula galeen gudaha dhismaha masjidka, taasoo ahayd tii ugu dambeysay ee ka dhalatay rabshado sare u qaaday cabsida laga qabo inay dib u soo laabtaan iska horimaadyadii ballaadhnaa ee dhexmari jiray Falastiiniyiinta Israel. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Erdogan ku sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen dhacdooyinkii u dambeeyay ay sababeen qaar ka mid ah kooxaha xagjirka ee Israel iyo ciidamada ammaanka iyagoo ku wada xidhiidhay khadka telefoonka, waxaana wada hadalkan uu ku soo beegmayaa xilli ay socdaan dadaalo lagu doonayo in caadil lagu dhigo xidhiidhka u dhaxeeya labadani dal. Weeraradii ay kooxaha xagjirka ay ka geysteen Al-Aqsa maalmihii la soo dhaafay iyo rabshadaha Gaza ku faafay ayaan sidoo kale ka xumaaday ayaa uu yiri Erdogan waxa uu sidoo kale sheegay inuu ku nuuxnuuxsaday sida ay lagama maarmaanka u tahay inaan la ogolaan daandaansiga iyo hanjabaadda ka dhanka ah maqaamka iyo cibaadada masjidka Al-Aqsa inta lagu jiro waqtigan xasaasiga ah ee bisha Ramadaan ee barakeysan. Rashid Baarcad, Ariel TV.